السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. badbaadin saamaya dhammaan walaalaha xiisadani waa xiisad cusub insha Allah waxaan dib ugu soo noqday basiga maadaama walaalo fara badan ay soo codsadeen inaan basiga dib ugu soo celiyo oo aan xaggii casharadii aan wadnay aan casharka toddobaad marinay ay ula qabsadaan marka xiisada waxaan u talagalay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed Yurub ay joogaan iyo wiilalba ee cusub ee maqlay waxaan forex la yiraahdo ee aan guri gaarin heerkan dhexe aan ka bilaabay xagga dhexe inay ka faa'iidaystaan isla markaana ay bartaan saan u wadi doono systemka xagga u dambeeyaan ku qori doona insha Allah waxaan doonayaa inaan ka fogareeyo sanadkan hadda bilaabmay insha Allah intii Ilaahay naga gaarsiiyo hadda waxaan rabaa marka intii aad ku share kartaan intii aad dhalinyaro kale la sii wadaagi kartaan intii aad subscribe oran kartaan oo samee si dhammaan walaalaheen uu gaaro channel-ku si dhammaan ay uga faa'iidaystaan waxaan ku baran doonaa marka waxaan ku baran doonaa basican koorsada basica soconaya soo gaabin doona waxaan ku baran doonaa insha Allah forex-ku waxa maxay forex-ku wuxuu yahay exactly waa maxay sarifle maxaa lagu ganacsadaa sarifka maxaa la isticmaalaa maxaa laga ganacsadaa yaa ka ganacsado dadka ka qayb qaata waayo maxaa laga rabaa inaad baratid sida buy sida loo sameeyo beepku wuxuu yahay magacyada ku qoran asking price spirit lot average equity volatility volume concentration pendulums waxaas oo dhan khaasatan kuwa markaan baranayno waxaan ku dhex baran doonaa meelaha ay ku jiraan meelaha practical ahaan bay ku baran doonaa insha Allah rather than theory soo dejinaa waayo haddaan mid walba ku qeexo aan Soomaali ku soo qeexo kaas waxaas la yiraahdaa adigana waqti ku qaadanaysa inaad qeexid akhristo waa arki doontaa marka wax adag maaha wax hadhowto markaad waxaan ka dhex shaqaysanaysid aad kugu soo noqon doono indhaha wala qabsan doonaa oo aad u fudud marka in lagu tuso meelaha ku qoran yihiin iyo waxay qabtaan platformka hadhowto u tagi doonaa daaqada in isticmaali doona inaan ka tuso inoo fudud waxaan ku fagaran doonaa insha Allah xiisadina basic ku fardanayn doonaa insha Allah xilliyada la ganacsado si aad adigu xilliga kugu habboon lagu darootid afaraad ka saac suuqna furayeen si aad adigu ku dhex darootid xilliga exact aad ganacsan lahayd waxaan ku baran doonaa wax la yiraahdo support statistics iyo sida loo sawiro maca trading-kooda waxaan ku baran doonaa wax la yiraahdo breakout-ka iyo pullback-iska waxaan ku baran doonaa sida aad iskaga ilaalin lahayd khasaaraha una faa'iidi ka lahayd waayo arday badan baa jirtaan basic ka dhisnayn ala waxaa dhacda dad badan baa jira oo signal ama iibsada ama qaata ama signaladan aan soo diro dadka soo diro kamid ah groupka qolkayga ku soo diro dad qaata end of week ama end of day khasaari taagay marka waxaa jirta waxyaala muhiim ah inaad barataan si aad signal iibsanaysid oo lacag kala baxsid iyo haddii aad qaadanaysid meel bilaash ka helisidba ay adiga ku anfacdo inaad adigu mar walba signalkii wax ku taro hadii la yiraahdo way hore u socon doonaa marka forex la sharaxayo dad badan sharaxan waxa laga yaabaa maadaama ay luqado kale ku baxayaan in wax weyn lagaaga dhigo wax weyn aad darintid forex-ku waa sarif la caadiyo kelmadda forex laba macno ujeedaa laakiin hadda inaan English barano waxaan kelmadda English ku kooban tahay no xirfadan baan u baahanay inaan barano si aad uga shaqaystaan si idinka luqadeena waxaan isla fahmino weyn ku barana English macnayno dan noogu jirto way sariflaha caadiga waa naqaanaa waa laba lacagood kala duwan oo la isku bedelo isla markaana faa'iido laga dhex raadinayo waxaana loo kala bedelaa iyadoo la isticmaalayo gacan hore iyo gacan dambe marna adaa gacanta hore marna adaa gacanta dambe mar sariflihii baa tahay waxbaad iibinaysaa lacag baa qof lacag u bedelaysaa marna adaa lacag ka qabanayo lacag baad u sarifaysaa qaabkan baa loo kala faa'iidaa suuqan waxay yiraahdaan maalintii suuqan sariflaha hadda suuqyada caalamka waaweyn ku jira bay yiraahdaan 5.3 trillion ba maalintii suuqaa soo gasha wax lagu kala iibsadaa kelmadda in badan baa dadka lagu yiraahdayo lagu market gareeyo 5.3 trillion doesn't make sense macnaheedu waxa 5 trillion qaadanaysaa xafidina qaadanaysaa Soomaaliya qaadanaysaa no adiga waxa dan macna ku sameeynaya suuqa waxa la gashid iyo xirfadda aad u leedahay baad ka soo dhex faa'iidaysaa ama 5 trillion ha ku jirto ama 10 trillion ha ku jirto kaliya macna waa suuq weyn maadaama lacag weyn ku jirta ku samayso hadda suuqyada caadiga suuqa bakaaraha weyn oo kale hargeysa suuq weyn ku yaalo kale haddii la xisaabiyo lacagta maalinta ku jirta aad doonaysid in meherad ka fulatid aan ku leeyahay 20 milyan ba maalintii suuqa soo gasha oo ka baxda meherada awooddaada baad ku artiskaranaysaa iyo ku furanaysaa xoolo 20 milyan magaalada suuqa soo gala suuq fiican wax lagu kala iibsado 20 milyan ha suuqyada ugu weyn macnaha ku samayso taa hala fahansanaa dad keenta dad badan markay meesha soo galayaan ku cusub yihiin
inay moodaan 5 trillion meel ay iska taalo ka qabo ka faa'iidayso ay ugu soo galaan. Waayo maxaa keenaya marka in suuqan inta aadka u dhismo suuqyada kale u dhismo dhammaan ganacsiyada waxay naqaanaa waxay ku wada dhisan yihiin waa lacag. haddaad dhar iibinaysa lacag baa siisanaysaa, haddaad iibsanaysa lacag baa siinaysaa, waxaasoo dhan waxay ku dhisan yihiin lacag. adduunkana waxa lagu kala iibsadaa waa lacag. suuqana marka isagii lacagtii baa laga shaqaysanaya, lacagtii baa la sarifaya, laba dal baa loo kala sarifaya. fahameysaa? adiguba qiyaas soomaaliya markaan joogno intee in leeg baa maalintii dadka intee leeg baa xawaaladaha aroortii lacag ka dira, intee in leeg baa maalintii xawaaladaha lacag ka qaata. waxaasoo adduunka oo dhan laga dhigay ka war, ama dalal intay doonaan inaga baabuloosha badan intay doonaan inaga diris badan laga dhigay ka war suurayso. macnaha maalintii lacag badan ba banaanka ku baxda, lacag badanna uga soo gashaa soo ma. inagu marka meelaheenna ka dirano kasoo qaad ninka China lacag u diraya dee lacag China ma diro, ama dollar ha geeyo ama shilin ha geeyey lacag buu geeyaa dalkiisa lagu isticmaalo. marka ay Japan ama China tagtaan isla dalkaasaa lacagta dalka laga isticmaaloba akoonka laga qaadaya. marka maxaa kaaga baxay farqi baa ku jira labada lacagood ee la kala bedelay, farqi baa u dhexeeyey lagu kala bedelay, sarif baa ka dhex dhacay. sarifkaasay inagu ka qayb qaadanayna marka. ATM-yada waa taqaanaa, ATM-ka balaha lacagaha lagala baxo kaadh baad gelinaysaa lacag baad kala baxaysaa. marka wuu kuu sheegaya haddii laba lacagood kala duwan tahay sarifka lacagtaas marayso wuxuu ku siinayo wuu kuu sheegaya. waa lasoo baxaysaa lacag baa kaa go-asa, lacagta kaa go-asa yaa qaatay, sarif la qaatay. marka sarifku waxaa fudud wax weyn maaha. berigii hore wuxuu kusoo bilaabmay in wax la kala bedeshaa. berigii hore alaabtu alaab baa wax lagu kala iibsan jiray, kadibna alaabta waa laga soo wareegay, dahabtu dahab baa wax lagu kala iibsaday, dahabkii waa laga soo wareegay, dahabkii waa la habeeyey, waxaa laga dhigay lacag baa loo sameeyey sidii shilimaanta oo kale loo abuuray. fida iyo dahab bay isticmaali jirnay inagu islaamka ahaan waa laga soo wareegay. islaamka ahaan waxaan usoo waregnay waxa la yidhahdo fulus, lacag macdanaa la sameeyey oo dahabkii oo kale maadaama dahabkii dadka ka yaraaday fulustii waa laga soo wareegay. waraaq baa soo baxday taariikhda sheekh shibili baa ka sheekeeya qaabkaas si fiican uga sheekeeya markuu cryptocurrency-ga iyo xalaalnimadii xaaraantinimadeeda forex waxa ka hadlayay buu si fiican uga sheekeynaya stageska lasoo maray. macdan baa waraaq baa loo soo wareegay. maanta waxaan isticmaalnaa waa waraaqo balaas xisaabaad akoonaynu leenahay ama zaad ha noqdo ama akoon meel ku yaal ha noqdo waxa ku yaala waa xisaab, akoon number xisaabaad haysataa saadkaaga xisaabka ku jirta iyo waraaqahaasaan isticmaalnaa. marka lacagaha maanta aan isticmaalno in lagu isu kala bedelo baa laisu kala bedelaa laisu sarifaa. lacagahana waxaan suuqan looga yaqaanaa currency pairs baa layidhahdaa, currency pairs. waxaan jeclahay forex wuxuu yahay fahantay, forex wax weyn ma waa sarifla caadiya adduunka ka kala shaqaysanana. waay horaan soconaya. maxaa suuqa looga ganacsadaa? suuqan waxaa looga ganacsadaa waxaa looga ganacsadaa platform oo kan caawan soo dejisan doonaa. platformkaas waa program system leh garaafyo aad ku akhrinaysid meelaha exactly isla xilliga wax sarifkiisa wax maraya. maadaama aan telefoon baxin berigii hore anagu xagga markaan joogno soconka waxaa arki jiray sariflayaashu waxay samayn jireen aroortii markay soo kacaan bakaarahay wici jireen si ay u ogaadaan sarifku aroortii inta lagu furay imisuu maraya sarifku maanta maxaa la siinaya gacanta way weydiin jireen. halkan cidaa wacaysaa ma jirto, platformkaasaad aroortii ka eegeysaa. waxaan maleynayaa hadda qolada sariflayaashan hadda akoonka wax ku sarifa ee lanta lacagta lanta iyo kashka isku sarifa xaggan waqooyiga somaliland iyaga aroortii iyagaa bedesha aroor walba waxay bedeshaan iyagaa sarifka bedela telefonto ama bankiga dhex message usoo diraan lacagta sarifka intuu maraya waa loo sheegaa iyagaa bedesha saa darteed way kala duwan yihiin laftigooda. halkan waxaa kuu sheegaya meesha wax marayaan platformkaas kuu sheegaya. platformkaasi waxaa loo isticmaalaysaa internet baa loo isticmaalaa si online ahaana buuna u shaqeeyaa online internet buu u baahan yahay online baana ta si live baa u fadhidaa adigu wax walba ogaanaysa haddaa internetka xidhid waxba ma ogaan kartid. waayo systemka waxaa kuu fududeynaya in platformka lagu siiyo ama hawshan waxaa kuu fududeynaya sarifle aad suuqa dhex gashid waa blockero waa dilaalo blocker baa la yidhahdaa. marka blockeradan waxay leeyihiin ama dilaaladana waa niman shirkada waaweyn leh dunida ama dowladaha ay joogaan aqoonsi ka leh sida bangiyada kale u shaqeeyo ama bangiyo heshiis la leh isla markaana lacagtaada ku dhigaya akoon bangi bay ku dhigayaan. lacagta akoonkaaga lagu dhigay waad ku shaqaysanaysaa iyagana kaaga mas-uula iyagaad kala baxaysaa ku dhiganaysaa faa'iidadana kala baxaysaa. waxay ku siinayaan platform mid walba wuxuu leeyahay platform ama daaqad ama program isaga u khaasa oo isagu suuqa meeshu maraya wuxuu yahay kuu sheegi doona insha allah xisad gaarin blokeradu waxay yihiin say u kala duwan yihiin kusoo qaadan doonaa. inkastoo jiraan meelo badan oo looga hadlay blokeradu waxay yihiin maxaan jeclaan kale waa duubay dhalinyaro kale Soomaaliya waa duubtay. waaye waxaad uga shaqaysanaysaa sida qaabkii xawaaladaha kale oo xawaaladaha waa taqaanaan berigii hore xawaalad marka lacag lagu soo diro xamar bay anaga markaan waqooyiga halka joogno xamar bay lacag ku dhici jirtay xaggaas laga soo dhiibi jiray 5 casho 6 casho wareegay qaadan jirtay.
markii dambe magaalada joogtid bay lacagtu kusoo dhacaysaa, laakiin waxay qaadan jirtay maalin 2 casho. Markii dambe saacado. Haddaba waxaa la marayaa heer online ah. Isla daqiiqada aad lacagta dhigtay, hal mar markuu geliyo foomka uu buuxiyo online-ka uu buuxiyo, internetka ku buuxiyo, isla markiiba qofkii kale meesha joogay waxaa loo oggolaanaya in lacagta la siiyo. Lacag baa ku taala la leeyahay. Online weeyaan. Halkana waa sida. Online baad wax u sarrifaysaa. Just isla second-ka aad buy ama sell ama qaabkii aad trade-ka qaadatid ama aad heshiiska gashid, sarrif nooca lacag labada lacagood inaad isku sarriftid, faa'iidadana ka raadisid. Isla markiiba qofkii kale buy online buu qaadanaya. ama ATM kula baxo ama system kula baxo ama shirkado kala iibsanaato ama wax bangi ha noqoto. Waa adduun weyn oo wax kala iibsanaya wax u kala sarrifaysaa. Waxaana kuu fududeynayaa isu socodkaaga la soconayo. Waxaa jirta marka maadaama sarrifka nooca yahay lacago fara badan oo laga faa'iido in la sarrifto, waana lacagaha aadka u socda, lacagaha xooga u socda kamid ah. Waayo. Lacagahaas 3 baa loo qaybiyaa. Major buyers kuwa la yiraahdo oo ah lacagaha ugu waaweyn, waxayna ku xiran tahay lacagahaasi marka waa dalalka ay kasoo jeedaan baa dalal ama dhaqaale waaweyn leh ama dalal dunida aad wax uga iibiya aadna wax uga iibsada. Kuwa ugu weyn waa nimankan USD-da Mareykanka la yiraahdo oo adduunka hadda ku wada qasan, meel walba farqi jiro, meel walba wax ka iibiyo, meel walba wax ka iibsada. Nimanka lacagtoodu waxaa la yiraahdaa major. Lacagta la socoto waa lacagaha aadka lagu xisaabtamo kamid tahay. Waxaa kamid ah lacagaha lagu xisaabtamo lacag la yiraahdo cross buyerska. Cross buyerska waxa weeyaan waa 3 lacagood ugu waaweyn wax kamid ah Euro, JBP, JPY, NZD iyo Canadian iyo waxaas ku wada jiraan oo ilaa 7-8 lacagood. Waxaa ku socda waxaa ku socda la yiraahdo exotic buyerska. Kuwaas waa lacagaha kasoo haray badanaa soo socoto. USD Soomaaliya ku jirta oo kale. Hadda waxa laga yaabaa maadaama kuli waa sarif caadi ah, waxaad ka dhex raadinaysaa soo maaha. Inaga lacagteena meel exactly ku jirnaa hal mar aad intuso. Waxaa la yiraahdaa dad USD SOS USD Somali shilling ku jirta already. Platformka waxaa laga helayaa lacag sarif oo dhan baa laga helayaa. Lacagtay doonto ha noqoto. Laakiin maxay ku kala duwan yihiin? Lacagna waa lacag shaqeeya. Ku khayatan qiimaha maraso system how tan Somali shilling ku jirta. Saasayna waa daciif maanta waa baran doontaa marka lacagta platformka soo kala go'go'ayo iyo marka kale quruxda badan yahay iyo waxyaalaha ku duwan yahay iyo loo dhimo sameynaya. Ujeedaan waa tan lacagtiin. Down trend xoog soo gashay. baran doontaa waa qiimaheedu aad buu u dilan yahay weeyaan. Hoos buu soo dhacay. ama sarifkan markaas marasayo si u dhacay iyo platformkan ku baran doontaan insha Allah. Lacag walba laga helaya halka hadii Jabay sauce ku qornay lacagtiina lagu sarifay Jabay sauce Jabay baa dheh. Wata lacagtiini sidoo Jabay socoto. Jabay da horeyna Soomaaliya. Wata Japanese in Somali shin good fun sayidna. Everything lacagtiina Soomaaliya baa tirid lacag dal walba laga helayaa laakiin maxay kala duwan yihiin? Waxay kala duwan yihiin tayna ma jeeda 5.2 yin bay maraysaa hadda somehow garamayo waxay tahay 5.2 yin si dadka Japan jooga garanay kara ay soo qalibsano laakiin lacag walba suuqan way ku jirtaa wax wada ka sariftaa maxay kala duwan yihiin marka lacagna si fiican buu shaqeeyaa waa laga faa'iidaa lacagna ma laha dhaqaaq ma laha sida halkan lacagtan kale foomkan kale ma dhaqaaq ma laha waxaan joogaa week kan dhalada saas yihiin waa baran doontaan sababta waxyaalaha casharada dambe ku baran doonaa insha Allah marka suuqan waxa laga ganacsadaa maadaama lacag walba ku jirto lacagaha ugu socodka badan ugu shaqada badan waa laga ganacsadaa way waan sii wadanaa marka suuqa waa sii wadanaa marka suuqa ayaa ka ganacsada dawladaha ka ganacsada suuqan way maadaama iyagu wax kala iibsanayaan wax kala iibinayaan suuqana way ku jiraan ganacsatada ugu jiraan sidoo ugu jiraan bangiyada ka qayb qaata waana kuwa ugu muhiimsan bangiyadu maadaama meelaha lacagtu yaalaan iyaga dadka asal dadka lacagta kala rogayay ee lacagaha lagu shubanayay kala rogay yihiin hay'adaha dhaqaaleed ba ka qayb qaata maalgashiyaal taajiriin ah ka qayb qaata oo macnaha 100,000 wax ka badan standard wax ka badan ku trade gareeya oo maalgashta shirkadaha waaweyn kamid ah Coca-Cola iyo kuwaas kamid ah Facebook shirkadaha waaweyn kamid ah waxa qaatay niman isku jawaabi yiraahdo oo qoloyin adaraski waxa ku fiican company u sameeyay waxa qaatay niman yiraahdo isku jawaabi yiraahdo company u sameystay oo daraska iyo inay predictable ku sameeyaan wixii in meesha aadayaan iyo systemkaas oo dhan ku fiican ba ka qayb qaata tafaariiqda retailska inay yiraahdaa dadka caadiga ah lacagaha wixii 100,000 ka yar ku trade gareynaya la yiraahdaa ka qayb qaataan 20% bay suuqa yihiin yiraahdaa waxaan inay ogaataa hadaba waxay ku faa'iideysaa waxaad la soconaysaa cidda suuqa riixi karta cidda riixi karin
fundamental waxa la yidhahdo oo wararka suuqan moogtahay dee dhowr nooc oo wax loo analyse gareeyo wax loo ogaadaa jira meesha wax aadayaan. Mid kamid ah qaababka wax loo ogaado waxaa kamid ah akhbaaraadka wararka. Marka haddii intaas wax ku timaado wax saameeyaan suuqan way saameynaysaa. Dowladdu haddii dhaqaale xumo ku dhacdo lacagteeda hoos bay u dhacaysaa. Saa darteed waa inay ogaataa. Bangi hadduu kaco ama xidhmo ama maalintuu fasax yahay lacagtiisu dhaqaaqi mayso, shaqayn mayso, waa inaad ogaataa. Hay'adaha dhaqaalaha si waxaan oo dhan saameyn bay suuqa ku leeyihiin, marka waa inaad ogaataa. Waayahay waxaan samayn doonaa marka intan haddaynu maadaama intaan dhamaynay waxaa noo xigi doonaa waxaan soo dejin doonaa MT4kii ama platformkii suuqa lagaga shaqaysanayay, lagaga ganacsanayay. Account deemaha baynu abuurananaa, isla markaana dhammaan casharada dambe practical ahaan baynu qaadananaa. Wixii loo gaadho waxaynu practical qaadanaa casharadii halkan ku yaalay. Kuwan oo dhan xiisadeena inagu xigta intan oo dhan practical baynu qaadananaa. Mid walba waxa la yidhahdo maadaama aanan hadda waqti badan aanan ku luminayn inaynu ku macneeyo Englishka kamid ah Englishka wax looga jeedaan ku macneeyo adiguna aad fahantay Soomaaliga ku macneeyo waqti ma qaadanaysa. Marka aad ku dhex taagi doonaa insha Allah systemka oo dhan isla fahmi doonaa. Waxaa inoo xiga marka intaan markaan dhamayno casharada dambe haddii la yiraahdo qaabkan halkan waxaan u talagalay inaan si guud ku sheego maadaama bahashan basic tahay meeshan u soconno. Insha Allah bilowga barashada forex oo basic inoo ah baynu iska dhisi doonaa. Sida loo akhriyo suuqa ama analyzing-ka oo hadda waan bilaabay. Casharkii 7aad buu marayaa wixii gaadhay basic fahansanay si fiican bay uga faa'iideysan karaan. Qaab fududna waan u habeynayay intii awoodeyda ah waad daawan kartaan. Waxaan ku xojin doonaa qaabka aad ogaan lahayd nooca trade-ka tahay ama sida trade plan trade waxa la yidhahdo trading plan waxa la yidhahdo aad u samaysan lahayd. Trading plan waxa la yidhahdo aad u samaysan lahayd. Sidoo kale sida suuqa looga shaqaysto istaraatiijiyooyin kala duwan somehow ama xilliyada kala fiican ha noqoto ama xirfado kala duwan oo suuqa samaysatay ha noqoto baynu baran doonaa insha Allah. Kadibna waxaan ugu dambaysiin doonaa qofka inaan isku dayno inaan qofka dad badan u soo saarno in iyagu waxaan dadka u tababaraan youtubers noqdaan oo youtube wax soo geliyaan somehow. Qorshahayga waxa weeyaan 2019 hadda bilaabmay haddii Ilaahay nabad nagu dhameeyo in aynu helno dhalinyaro aad u fara badan oo traders ah oo suuqa si fiican uga shaqaysan kara isla markaana noloshooda maalmeedka iyo dhaqaale ka fiicanba ka samaysan kara suuqa. Waayahay waxaan u gudbinaa talaabada stepka waxaan soo dejin doonaa platformkii aan shaqada ku bilaabi lahayn. Waayahay waxaan tegayaa waxaan soo kicinayaa XCM kaa u saran doonanayaa hadhowto marka Google ku dhufatid kaa ku qoran tahay forex and CFD training on stocks intaas ku qoran tahay oo kale waad ku dhufsan doontaa insha Allah. Markaad ku dhufatid halkan bay keenaya. Marka waxaan samaysanaynaa account deema si hadhowto platformka inagu furmo. Doomeedu waa meel loogu talagalay in practical lagu sii sameeyo. Tusaale ahaan gawaarida la baranayo gawaari baa jirta lagu barto halka magacaaga ugu sareeyo geli shareeco ise halkan magaalada joogtid laas caanood baa geliyay kamad baan ka furay halkan lambarkaaga ku weydiinaya exactly lambarkaaga waad gelin kartaa 252 kuwa mid kamid ah soo qabanaya kadibna xagga dambe ka jaraya. Waayahay halkan emailkaaga gelinaysaa shareeco 59@gmail.com kan emailkan geliyay halkan emailkan geliyay halkan luqad dooro Englishkan dooranaa. Waayahay intaas aan sameynaya la sameeyo hadhowto MT4 kan dooranaa 4ka ka hoosaan dooranaa halkan town buu inoo ogol yahay baan qaadanay. Halka eurada ku qoran tahay USD dollar ka dhigo. Leverage-kana doesn't make sense si laakiin aan reality ugu soo dhawaatid 150 ka dooro. Lacagta 1000 waad u daa halkana pin u samayso ku leeyahay password-kaada u samaysan doontaa. Password-kan ka hadhowto ku geli halkan password-kaada u samaysan doontaa waad hadhowto ku geli doontid.
halkana waxaad gelin doontaa passwordkaaga xarafka ugu horeeya capital ka dhig si uusan kugu diidin. Horta ka u horeeya capital ka dhig, xagga dambe number kaga dar. Halkaa taxi open demo account already emailkaaga lagugu diray buu ku yidhi. Marka waxaan rabnaa inaan la degno doonaynaa halkan ku dhufo click heersan download XML MT4 waa kan u soconay kaasaad ku dhufsanaysaa. Ku dhufatay wuxuu kuu soo saarayaa shaashadan waxaa sii doorataa anu computerka raba inaad ka digtaan waayo practical baan ku sameynaynaa maogtahay. MT4 ka dooro for PC halkan buu keenayaa hoos u soo soco ka calaamada download ku dhufo. already halkan maaragtaa wuu download garanaya wuu socdaa. email waa inay iisoo direen xaggan emailka fur refresh ku samee exactly ka emailkana fur soo kici open markaad open tiraahid halkan kuu saarayaa yes dheh exactly hadduu shaqada bilaabaya marka waa kan usduubayaa next dheh inta uu dhameynaya cagaarkaas ayaan sugaynaa marka baar buu wadayaa inta uu wadaya sugaynaa wuu dhameeyey finish dheh waa kan halkan buu keenay waa kan halkan buu shaashada iisoo dhigay 2 jeer click sii suu inoogu soo kaco. waa kan uu soo kacay halkan buu wadaa markuu intaa kuu wado si aad u ogaatid adikaagii emailkaagii aad wax emailka laguu soo diray kasoo qoro affirmationka laguu soo diray. waa kan hadda emailkaygan joogaa informationka raba inaan ka qorto confirmation bay weydiiyeen exactly confirmationka sii mar labaad bay email ina soo diri doonaan emailka dambe waxaan ka qoranaa insha allah registrationka. horta lambarkaaga waa kaa ID-gaagana waad haysatay ID lambarkaaga waa PIN-kaagana waad haysatay ma isticmaalaysaa waayo email labaad bay inoo soo direen email labaad lagu soo diray ka labaad fur waxaa ku qoran horta serverka isticmaalaysa waa kaa ID lambarkaaga waa kan ID lambarkaaga soo koobiyeyso copy serverkaana waa ka dhex raadin doonaa ina game meeshii hadda inoo shaqeynaysa waan joognaa maogtahay waa ka serverka goloma demo for baaniya lasoo siiyey adiga kulusii ku dhufanaysa kaa ku dhufo kaa 2 jeer ku dhufatay next dheh wuuna haa kaa soo baxaa halkii login tahaa 3daa tig ka u sareeya saaraysaa kaa ku dhufo waxaad soo koobiyeysataa ka ku qoratay halkana PIN-kaaga geli halkana PIN-kaaga geli marka finish dheh waayahay exactly muujeedaa uu shaqeeyey exactly wuu shaqeynaya waxaa ku garanaysaa incoming mail exactly emailka isu diray kulli waa kan dhahan waxaan ku garanaya inuu shaqeeyey halka uu ka iga furmay XM ka magacayga shareecaysan kusoo qoray wuu ii furmay mid kamid aan weyneynayaa waayay habeen dambe xiisada ku xigta halkaas in kasii bilaaban doonaa insha allah waxaynu practical doonaa waxa kale casharada dhigan doonaa waxaa kamid ah baayida wataa sel wataa PAD aska kuwa spirit waxayna ku dhex jirtaa waxaan sida loo isticmaalo waxani waxay yihiin everything practical baan baran doonaa mid haddii ilahay yiraahdo basiga lagu sheegay waxa weeyaan shaashadan sida loo isticmaalo inaad baratid waxani waxay yihiin baratid everything meesha ku yaala baran doonaa marka intaas kusoo baxdo halkaa igu daa
insha allah xiisada ku xigtana barnaamijkaas ku bilaabano.